Dilaagii duqowshinka diley caabuqa coronavirus oo kasoo bilowda Shiinaha ayaa si weyn ugu baahay dunida. Wadamadu sida baan u saameeyay waxaa ka mid ah wadanka Talyaaniga oo xaqiijiyay in ka badan 63,000 oo kiis, dhimashaduna ay ka badan tahay 6,000 kaliya hal maalin waxa uu geeriyooday dad gaaraya 600. Tirada dhimashada Talyaaniga caabuqa coronavirus ayaa aad uga badan tan Shiinaha. xogtii ugu dambeysay ee rasmiga ah waxay muujinaysaa iyadoo dhimashada Shiinaha si xoog ah hoos ugu dhacday, Yurubna ay noqonayso musiibada dishay kumanaanta isla markaana qalqalgelisay dhaqaalaha adduunka. Haddaba su'aal baa isweydiin mudan, maxaa tirada dhimashada dalka Talyaaniga sii badiyay? Ugu horreyntii wadanka Talyaaniga waa wadan ka mid ah wadamada reer Yurub ka oo ah wadanka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee da'da ah. Waxaaba lagu tilmaamaa inuu yahay wadanka waayeelada, waxaana dhaqaatiirtu sheegayaan dadka waaweyni in ay u nugul yihiin inuu si sahlan ugu dhaco difaaca jirkooda aad u yar darteed, taasi ugu dambeyntii sababaysa in qofka da'da ahi u geeriyoodo caabuqan. Gama u diiday dowladda dhaqaale ahaan waaweyn, kuntigana u dhoojiyay dhaqaalaha dunida, gafuurkana maroojiyay kuwii kibirkoodu karar dhaafay. qiyaasii 41 oo ka mid ah dadka u dhintay waxay da'doodu u dhaxaysaa 80 ilaa 89, iyadoo da'da 70 ilaa 79 ay ka badan tahay 35 boqolkiiba. Tan micnaheedu waa in boqolkiiba 90 bukaanada coronavirus lagu xaqiijiyay inay u dhinteen Talyaaniga marka la barbardhigo 4 boqolkiiba Shiinaha. Talyaaniga waxaa ku nool dadka ugu da'da weyn adduunka marka laga yimaado wadanka Japan. Khubarada caafimaadka waxay leeyihiin tirakoobka dadkani duqowshinka waxay sharaxaad ka bixinaysaa sababta tirada dadka halkaani ku dhintay ay aad uga badan tahay dadka kale ee dunida. Cudurrada dabadheeraada waa sababta ugu weyn ee dhimashada Yurub. In ka badan 3 meelood meel dadka reer Yurub ee ka weyn da'da 15 waxay qabaan cudurrada dabadheeraada. 2 ka mid ah 3 qof ee gaara da'da howlgabka waxay leeyihiin ugu yaraan 2 xaaladood oo cudurrada ah, sida laga soo xiganayo ururka caafimaadka adduunka. Dadka ku nool dalka 23 boqolkiiba waa dadka kor u dhaafay 65 kuwa oo u nugul inuu cudurka ku dhaco, waxayna dowladdu amar ku bixisay in dadka da'da ahi aysan ka soo bixin guryaha si loo yareeyo faafidda cudurka. Dowladda Talyaaniga waxay soo rogtay xanibaado culus si loo xakameeyo faafidda fayraska, iyadoo dadka lagu qasbayo inay guryahooda joogaan haddii aysan jirin xaalad degdeg ah ama ujeedooyin muhiim ah oo la xiriira shaqada. Baararka, maqaayadaha, iskuulada, jaamacadaha, madxafyada, xarumaha isboortiska marka laga reebo xarumaha caafimaadka iyo dukaamada cuntada ayaa la xiray dhammaan dalka oo dhan. Dhaqaalyahanadu waxay saadaalinayaan in si xoog leh hoos ugu dhici doono GDP-ga rubaca koowaad ee sanadkan oo hadda dhammaad ku dhow, taasi oo Talyaaniga uga dhigan hoos u dhici afaraad 10 sano gudahood kadib markii wax soo saarka hoos u dhacay 3 boqolkiiba 3 bilood ugu horreysay sanadkan. Waqooyiga Talyaaniga oo ah meesha aadka ugu faafay cudurkan ayaa noqotay wuhaanta cusub oo ah halkii uu cudurka ka soo bilowday dhammaadkii sanadkii tegay. Arrinta muhiimadeeda ayaa ah inay dowladaha oo dhan u baahan yihiin inay raacaan Shiinaha markay qaadanayaan tallaabo toos ah dhanka COVID-19. Waxyada daryeelka degdega ah ee isbitaalka waa in la ballaariyo, isbitaallo ku meel gaar ahna waa in la dhisaa, iyo kuwa wax lagu kaydiyo. Qalabka difaaca iyo maaskara waa in la soo saaraa, loona diyaariya dhammaan kuwa u baahan. Laga soo bilaabo 15 Maarso, Talyaaniga wuxuu sameeyay qiyaastii 125,000 oo baaritaan, waxaana la xaqiijiyay 63,000, waxaana u dhimatay 6,000. taa beddelkeeda Kuuriyada Koonfureed oo hirgelisay istiraatiijiyadda baaritaanka baahsan waxay qaadatay qiyaastii 340,000 oo baaritaan oo ay ku jiraan kuwa muujinaya astaamo fudud ama wax astaamo ah haba yaraatee aanan muujinayn. Waxay diiwaangelisay ku dhawaad 9,000 caabuqa ilaa maantay, iyadoo heerka dhimashadu uu yahay 0.6 boqolkiiba. Wadanka China ayaa hadda xaqiijinaya inuu si weyn hoos ugu dhacay faafidda iyo dhimashada dulinka, waxa uuna China ku eedeeyay Mareykanka in cudurka ay keenaan ciidamadooda badda. Dhibaato kasta oo ku gaarta khibrad baa laga dhaxlaayay. China cudurkaani si xun u dhaawacay dhaqaalaheedii, sababna u noqday dhimashada in ka badan 3,000 qof ayaa khibradii ay ka dhaxashay iyo khubaradii iyo dhaqaatiirtii la tacaalaya cudurka waxay u dirtay wadanka Talyaaniga. Shiinaha ayaa gargaar iyo dhaqaatiir u diray wadanka Talyaaniga, gargaarka oo ka koobnaa maaskaraha afka, jaakada caafimaadka, iyo koo dhaqaatiirtan ka caawin doonaan Talyaaniga la tacaalida cudurka. Kaliya Shiinaha maahan, iyakana waxaa gargaar u diray Ruushka iyo Kuuba. Cudurkan ayaa aad ugu faafay Yurub, waxaa sii siyaadaysa dadka u dhimanaya cudurkan. wadamada UK, Faransa, Spain iyo Talyaaniga. Dulinkaan dilaaga dunidana kala xirey, duulimaadyadiina banadey, darisyadiina isku diidey, duqowshinkana aan u daahin, daaimow inaka dami.